wadadan oo dhererkeedu yahay 2 kiiloomitir ayaa mid muhiim u ah isku xirka jidka Sodonka waxaana lagu magac daray Bandar Qaasim talaabadan oo ay fulisay dawladda hoose magaalada Boosaaso munaasabad xariga looga jaray ayaa lagu qabtay wadadan iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka tirsan golaha wasiirada Puntland maamulka gobolka Kandegmada iyo marti sharaf kale siyahayaha duqa degmada ahna ku-xigeenka duqa degmada Boosaaso Saciid Cabdiraxmaan Garoon oo halkaasi ka hadlay ayaa xusay wadadan Bandar Qaasim Boosaaso waa wada bartamaha magaalada Boosaaso maalgelinteeda waxa ka qayb qaadatay gacan ka geysatay dhay waxaana fulisay shirkad maxalli oo la yiraahdo Hubal Construction guulaha isdaba jooga ah ee Puntland ka socda gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso mid kamid ah guulaha inaynu maanta taagannahay wadada Tandheer oo 2 kiiloomitir qiyaastii ah martana halbowlaha magaalada Boosaaso wax weynna ku soo biirin doonta haduu Ilaahay idmo isu socodka bilicda magaalada ganacsiga iyo amniga intaba wasiirka maaliyadda Puntland Shiraxa Jifaaraha xariga ka jiray wadadan ayaa sheegay waxaan mahad ballaaran u celinayaa marka uu horeysay intii ka qayb qaadatay dariiqan Bandar Qaasim ee dhexmaraya magaalada waxaad dareemaysaa in magaalada mustaqbalkeedii uu hadda future-ka hadda wixii ka dambeeya ee magaalada ay dawladda hoose iyo intii ku shaqaliyay ee planning-keeda iyo town planning-keeda ay saxi doonto meeshan aan ku taagnay iminka waa wadadan waxay u baahan tahay in madama tajid dambe lagu sameeyo sababtoo ah daamurkan meelaha qaarkood inay ku badan yihiin meelaha daamur ku badan yahay xagaagina way nagu soo socdaan waa go'ayaan haddii aan waxaan ka codsanayaa dadka wadadan degan ama magaalada Boosaasaba wadooyinkaas quruxda badan oo magaalada Booso dhinac walba laga taagay ama laga dhisay waxa weeye inay ilaaliyaan oo waxa weeye wadadaas aan lagu shubin biyaha iyo wixii dhibaato u keenayaba Ahmad Sham Home Cable TV Boosaaso.